محمود بدله oo ah falanqeeyo arrimaha siyaasadda ah maxamed ku soo dhaw barnaamijka dabagalka maxamed oo dhawahay sidee macquul ku tahay in barnaamijyo ka dhacaan muqdisho mucaaradkuna wali ay ku sii adkeysanayaan inay sameeyaan barnaamijyo iyadoo jimcihii barnaamijyada la filayay baaqdeen bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam mudaharaad magaalada muqdisho sidii aynu aragnay maalintii ugu dambeysay ee jimcaha ay mucaaradkuna ay u ballansanayeen in ay mudaharaad ka qabtaan dawladuna ay joojisay walow mudaharaadkii maalintii dhaweyto aad moodo in qaybtiisa badan ay dhacday oo ah message-kii ay mucaaradku ay gudbinayeen ay rabeen inay gudbiyaan oo bulshada u gudbiyaan inay gudbiyeen oo meel walba u gaadhay laakiin taa marka laga yimaado hadda su'aasha aad weydiisay waxaanu oran karnaa sidii aynu aragnay maalintii dhaweyto berina way dhici kartaa marka in mucaaradku iyagoo xaq u leh waxa weeye inay mudaharaadaan in qodob dastuuri ay tahay in haddana wixii maalintii dhaweyto dhacay laba ciidan in la istuso oo kale inay dhibaato ka dhalan karto dawladda laftigeeduna waxa weeye haddii dadkani waa dadkii dawladda loo ah mucaarad iyo shacib labadaba dawlad bay noo wadahay marka dawladduna inaanay waxa weeye dadkii markaas sida nabadda ah u banaanbaxayay inaanay ku khasbin inaanay macnaha aanay caburin oo tusaale ahaan aanay oran yacni waddanka kama dhici karto mudaharaad loo ogolaa dadkaas mudaharaadkooda waxa weeye iyagana midowga murashaxiintuna ay waxa weeye dawladdii waddanka xukumaysay ay ka talageliyaan liannahu waddanka waan ognahay amnigiisa iyo maaragtay xaaladda dalku say tahay marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in dadkaana waxa weeye mucaaradka ah ee mudaharaadaya aan laga hor istaagin dawladduna waxa weeye ay waxa weeye waddankaas nabadiisa iyo horumarkiisa ka shaqeyso maxay tahay danta mucaaradku ay kala yihiin in dibadbaxyo ay ka abaabulaan magaalada muqdisho dadka waxa weeye danta mucaaradka waa caddahay waxay tahay in ay waddanka ay doorasho ka dhacdo waxa doorashada dabada ka riixayana waxay tahay in madaxweynaha uu dhammaaday waktigiisu waxa weeye oo ay kaga ekayd bisha February 8 marka waxay leeyihiin madaxweyne heshiis macnaha matalan 6 bilood soo socota doorashadii way soconaysaa heshiiskaas ayaa la galay oo doorashadu ku soconaysaa wali ma jirto marka yacni taasaa waxa weeye soo dedejinaysa mudaharaadyada iyo rabshadahan dhacaya ujeedkii ay ka lahaayeen kii ugu dambeeyay ee mudaharaadkii ugu dambeeyay ahaa in ay gudbiyaan aragtidooda siyaasi ee ah in ay waddanka doorasho ka dhacdo inay weli qodobkii taagan yihiin oo marka ay leeyihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan ku celinaynaa inta la ogolaanayo in waddanka ay doorasho ka dhacdo ama heshiis la gelayo okay dawladdu sidee tahay inay u maareyso marba haddii mucaaradkii uu ku adkeysanayo in dibadbaxyo magaalada muqdisho ay ka sameynayaan dawladdiina iyaduna ay ku adkeysanayso in barnaamijyo aysan ka dhicin magaalada muqdisho arrin sidaa ka duwan oo dawladdu ay ku maareyn karto dibadbaxyada maadaama dad badan ay leeyihiin arrintaasi waa arrin dastuuriya xaqna ay u leeyihiin ma jirtaa haa way jirtaa oo waxa weeye dawladdu marba qof baa jooga dawladnimada sheekh shariif baa mar joogay mar xasan sheekh baa joogay xasan cali khayr ra'iisul wasaare ka ahaa farmaajo maanta madaxweyne ka yahay horta shakhsiyaadku baa isbedbedelaya dawladdu waa dawladdeeni shakhsiyaadku baa isbedbedelaya dawladdu waa dawladdeeni marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay in waxa weeye dawladda dadka markaas talada haya oo u sareeya hadda maanta madaxweyne farmaajo waxa weeye ay waxa weeye maalintii habeenkii ugu dambeysay waan ogeyn dhibkii dhacay waxa weeye dadku sidii ay u argagaxeen waxa weeye marka dadkaas mudaharaadaya dadka mucaaradka ah loo madax banaaneeyo aragtidooda iyagana mucaarad ahaan macnaha inta xitaa haddii ay iyagu ku adkaystaan dad dawladda ka mid inay guryahooda ugu tagaan oo dhahaan waddanka waxa weeye waa wada leenahay annagu waxa weeye dawlad gaara ma nihin dawladdiinii baanu nahay waxa weeye amnigii sidii macnaha mudaharaadkaas isagoo amniga idinku aragtidiina dhiibanaya waddankana dawladdii ka jirtay ee waxa weeye ay ilaalinayso nabaddii in aragtidii macnaha meel dhexe laisugu keeno oo mudaharaadkii sidaa ku dhaco oo dawladdiina waxa weeye ay roolkeedii qaadato oo aanay dawladdu ciidan iyo xabad aynay shacabka aynay u adeegsan
ama baad macnaha hadii aan iyaga ciidan ahaan hadii iyaga aan xabad lagu bilaabin ka hor inta ka horeysa ay iyagu ilaaliyaan mudaharaadkaas leena waa dadkii dawladda loo ah sidaasi waxa weeye waa aragtida ugu wanaagsan ee waxa weeyaan isleeyahay waxa weeye dawladda iyo mucaaradba waxa weeye danta guud ee bulshada ay ku jirto in la ilaaliyo oo ay dawladdu markasta ay tahay mas'uuliyadii iyo waxa weeye ilaaliyihii shacbiga si guud si gaar ah siday kula tahay in mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay uga wada shaqeyn karaan xasiloonida dalka iyadoon foodo loo horseedin iyo qalalaas hor leh inaga og in Soomaaliya muddo badan ay ku jirtay dagaal sokeeye xal aan taa ahayn oo ka wada shaqeyn karaan mucaaradka iyo dawladda si wadanka hore ugu socdo ma jirta wallahi waxa weeye horta wuxuu hal meel bay isugu wada beeshonayaan waxa weeye shalay waa qoyinta mudaharaadku markuu dhacay habeenkii taanu dhicin waa ognay wixii dhacay waa ogeyn marka ra'iisul wasaaraha wadanku waa soo hadlay wuxuu yidhi albaabadii waa idin furan yihiin mucaaradka iyo cid walba oo wax tabanaysa way iman kartaa in la tixgeliyo ra'iisul wasaaraha laftigiisa waxa weeye ra'iisul wasaaraha laftigiisuna wixii dhacay waa ogaa madaxweynaha wadanku waa ogyahay macnaha inaanu khasaare inagu iman waxa weeye waxa la isku haysto oo kow oo mudaharaadkan waxaan keenay waxa weeye waa doorashada marka in doorashadii war waxa weeye sax laga keeno madaxweynaha hadda waxa weeye mucaaradku markay hadlayaan waxay leeyihiin madaxweynuhu waa dictator buu leeyahay madaxweynuhu waxa weeye doorasho wadanka inuu ka qabto ma doonayo madaxweynaha waxa laga rabaa isaga wadankan isaga ugu sareeya inuu isbaraxo oo dhaho war anigu doorasho waa doonayaa waxa weeye heshiis uu galo heshiiska uu dedejiyo wadankan xalkiisa la wada raadiyo si guud loo wada raadiyo inuu yiraahdo anigu dictator ma ihi oo mataqaana oo iscadeeyo uu bulshada la hadlo sida mucaaradku ay mar walba bulshada ula hadlaan marka waxa weeye kadib waxa weeye in mucaarad iyo muxaafidba waxa weeye inta la isku yimaado ninkii mudaharaad dhigaya waxa weeye si salmiya oo yacni ninka mucaaradka ma aha hadduu ninka dawladda la kulmo inuu mucaaradnimadii ka tanaasulay kan dawladdiina inuu mucaaradka u jabay laakiin si guud waxa loo danaynaya waa shacbi in dadka shacbiga ah ee Soomaaliyeed danta dawladnimo aynu leenahay maaha shakhsi inaynu si guud u wada ilaalino dawladduna waxa weeye in ay istabciso dadka u turto dadka aan xabad lagu ridin macnaha dadka la ilaaliyo dadka dawlad lagu yahay dadka dawlad loo yahay marka in si guud waxa weeye la isaga wada yimaado oo waxa weeye arrinkaasi mar labaad aanu dhicin wixii maalintii ugu dambeysay wixii dhacay aanay dhicin uu dhaco waxa weeye haddii mudaharaad u dhacayo mudaharaad nabadeed oo salmiya oo aragtida ay qabaan mucaaradkuna ay halka ku dhiibtaan shalay waxa weeye midowga murashaxiintu kuwa cusub maaha shalay waa jireen oo markii xasan sheekh uu madaxweynaha ahaa midowga murashaxiinta jirtay farmaajo ka mid ahaa oo Twitter jazeera wada deganaayeen marka halkii maantana midowgu waa jiraa marka in adigu waxa weeye aanu wadankeenu aanu dhibaato aanu ku dhicin in marka laga ilaaliyo inuu dhibaato ku dhaco oo waxa weeye si guud looga shaqeeyo dawladdu waxay leedahay cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa jira oo soo kordhay agaybo badan ayaa haatan ugu dambeysay maanta gobolka Banaadir uu gaarsiiyay isbitaal Martini arrintaas ay dawladdu u sababeynaysaa leedahay macquul ma in dibadbaxyo ka dhacaan Muqdisho mucaaradka arrintaas maxay ugu muuqalaadahay in cudur halis oo wadanka uu ka jiro taas soo maaragtay dad badan ay u jiifaan isbitaalada waxa weeye horta COVID-19 maanta waa wax dhalashay maaha hore u jiray maalmaha waa soo laba kacleeyay midowga murashaxiinta ayaa ka horeeyay dawladda maalinta ay qabsadeen mudaharaadka dawladduna ka dambeysay marka anigu waxaan aan qabaa waxa weeye dawladdu waa dawladdeennii waxa weeye inaga ilaalinaysaa haddii ay tiri wadanka COVID-19 baa jira waxa weeye mid loo tixgelinayo tan mucaaradkuna tixgelinteeda leedahay oo ah waxa weeye anagu waa banaanbaxaynaa waxa weeye waxyaabihii loogu talagalay COVID-19 oo kala fogaanshiyaha ama macnaha dadka markaan mudaharaadayo kale inaan ku wacyigelino in ay kala fogaadaan oo mataqaana afxirashona ay xidhaan oo sidii ay markii hadlayeenna ay sheegayeen waxa weeye marka in waxa weeye aniga waxay ila tahay macnaha COVID-19 kaliya macnaha ma noqon karo in mudaharaadka laga baalkeeyo
laakiinse qayb buu ka noqon karaa macnaha qayb buu ka noqon karaa ugu dambeyn maxamuud maxaad u aragtaa xalka siyaasadeed ee wadanka iyo xaaladda haadan uu taagan yahay ee ismarwaaga ah wallahi xalka waxaan u arkaa xalka madaxweynuhu ku jira waxa weeye wadanka madaxweyne waxa ka Cabdullaahi Farmaajo waxa laga rabaa 4 sano la doortay 4tii sano waa u dhamaatay wadanka doorasho isaga laga rabay inuu ka qabto guddi doorasho ha jirto laakiinse meel far la saaro madaxa ugu sareeya madaxweynaha mas'uuliyadda leh waxa weeye doorashadii waqtigeedii kuma dhicin dib u dhacday ceeb maaha xasan sheekh iyo xilliga Farmaajo dib u dhacday laakiinse in heshiis la galo waxa weeye maamul goboleedyada Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe in ay waxa weeye iyaga laftigooda wadanka u turaan madaxweynuhuna isaga maanta madaxweyne bari wixii dhaca madaxweynaha waxa weeye loo qabsan maayo oran maayo Deni ba maalinta saas ku adkaystay laakiinse mas'uuliyadda wadanka madaxweynaha qaaday madaxweynaha laga rabaa in uu waxa weeye wixii ka tanaasulo si doorasho wadanka u dhacdo oo isaguna uu bulshada u sheego ama tuso in uu waxa weeye raali ka yahay in wadanka doorasho ka dhacdo oo dadku inay qalad ka fahmin dadka mucaaradka ana waxa weeye in iyaguna waxa weeye ka shaqeeyaan sida ugu wanaagsan waxa weeye aan dib ku dhici karin tusaale ahaan maalinta dhaweyto jimcaha in ciidamo badan oo ka badan kuwo macnaha ilaalin ah qaab mantaqana kale inaan la iska dareensan macnaha oo hadii laba ciidan ay is arkaan macnaha isku dhac baa meesha ka iman kara iyaga oo ay markii hore ay tahay in iyaga ilaaliyaan haddana in wixii xoogaa mantaqana la kala yareeyo guntii iyo gabagabadii waxa weeye in madaxweynaha sida ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan wadankan uu doorasho u geliyo heshiis uu galo mucaaradka iyo dadka markasta macnaha hadlaya iyaga laftigooduna ay arkaan in wadanka ay doorasho ka socoto guud ahaan waxaan kusoo gabagabeynayaa heesta tiraahda gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale weeye nabaduye aan wada hanano aan isla hayno hareeraha aan qabano oo horumarino nabadda macnaha shacbiga dadka madaxda ah iyo dadka mucaaradka ah nabaddu waa inoo dan waxa weeye shalay toole wadankeena waxa weeye waa burburay markii uu burburay dad baa madax ka ahaa dadna mucaarad bay ahaayeen waxa weeye ninka mucaaradka waagaas ahaa kama fikirin markaa ninkan aad bixiso sidii wadanka loo xukumi lahaa sidii la isku raacsin lahaa maanta waxa weeye waxbaynu soo toltolanay waxa yar in soo toltolanay inaanay si yaro dhib ay naga burburin si guud aan u wada ilaashano waxa weeye aragtida wala kala duwanaan karaa aragtida inaan la qabiileyn inaan la caadifadeyn mucaaradkana waxaan kula dardaarmaya iyaga oo waxa weeye aragtidooda dhiibanaya waxa weeye gudbinaya in ay sida ugu wanaagsan u gudbiyaan ka ilaaliyaan caadifada ka ilaaliyaan wax macnaha bulsho iska horkeeni kara dawladana waxa weeye madaxweynaha ugu sareeya waxa weeye isaga laga fadhiyo doorashada in doorashada si u dhaqsiyaha badan loo qabto aniga waxa weeye gabagabeedu sidaas ay tahay aad ayuu maasan yahay kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Badle oo ah falanqeeyo arrimaha siyaasadda ah oo ila falanqeynayay shirkii jaraa'id ee midowga musharaxiinta ay ku sheegeen inay sii weli doonaan dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ku dalbanayaan in wadanka ay doorasho ka dhacdo aad ayuu maasan tahay Maxamuud halka barnaamijka ka daawaneysaan waa telefishinka Universal TV waxaan la socodsiinaya anigoo Maxamed Ciise Koona inta dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo